madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo safar qaaday maalmuusan ka maqnay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga iyo Kreetanka nagaday magaalada madaxda dalka ee Muqdisho garoonka diyaarado aadan Cabdullaahi Cusmaan ee magaalada Muqdisho wafdiga madaxweynaha ma ka dhawaayay wasiir iyo xildhibaan ku tirsan dowladda federaalka dowlad goboleedka koonfur galbeed saraakiil laamo amniga iyo qaybo shil duwan bulshada caasimadda madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed intii uu ka sugayay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ma isu kulamo shil duwan lawaalada doonay madaxdanka saraakiilka qaranka uu ku lahadla doona xaalado ku jira dalkoon ka horeeyay arrimo doorashooyinka iyo amniga iyo waliba sidii lan taageero lahay dowlad goboleedka koonfur galbeed howlgalladii ku bilaabeen guud ahaan gobolada koonfur galbeed ee la ka bacsado argagixisada al-shabaab ee dhawaan Nagombe Jabhoogan lankajaysaday deegaano ku tirsan koonfur galbeed madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed iyo madaxda isku lahadla doona dardargeliyo ka geedi socodka doorashooyinka oo la qorsheeyay dhawaan inta ku bilaawada guud ahaan dalka Faisal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed magaalada Muqdisho.